wafdigan uu hogaaminayay gudoomiyaha baarlamaanka Hirshabelle Sheekh Cismaan Barre oo ay qayb ka ahaayeen xubno ka tirsan baarlamaanka Hirshabelle ayaa si diiran loogu soo dhaweeyay magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan waxaana ku soo dhaweeyay xubno qayb ka ah maamulka gobolka Hiiraan iyo wasiirro ka tirsan Hirshabelle baarlamaanka gobolka Hirshabelle Sheekh Cismaan maanta inuu soo gaaray mudana gudoomiye soo dhawaaw waa dadkaadii waa dalkaadii maanta waxaan soo dhameeyay gudoomiyaha baarlamaanka Hirshabelle runtii gudoomiye ku soo dhawow gobolka Hiiraan gaar ahaan magaalada Beledweyne waxaan rajaynayaa inay markii labaad soo dhawow waa gobolkaadii waxaa sharaf weyn noo maanta inaan soo dhaweyno Sheekh Cismaan Barre Maxamed oo ah reer Beledweyne gobolka Hiiraan reer Beledweyne ahna ra'iisul baarlamaanka Hirshabelle labada gobol aadan soo dhaweynina adiga gudoomiyaha hore ee gobolka iyo adiga saaxiibaad tihiin waxa la rabaa dhagoole iga yarid waaye waad la socotaa waxaan ka rabnaa in aad kaalin ka qaadato soo dhawaada runtii mudana gudoomiye soo dhawow gudoomiyaha baarlamaanka maanta waxaan halkan ku soo dhaweynay gudoomiyaha baarlamaanka Hirshabelle Sheekh Cismaan Barre Maxamed gudoomiye ku soo dhawow gobolka Hiiraan waa magaaladaadii qaasatan magaalada Beledweyne marka booqashadayda waxay daaran tahay maadaama aan golaha shacabka aan muxuu ahay oday u ahay in shacabka reer Hirshabelle qayb kamid ah oo aan muddo ka maqnay reer Hiiraan inaan soo booqdo inaan muxuu ahay bal ahwaashooda maadaama xilliga fasax lagu jiro ay tahay in deegaan doorashada la tago runtii inaan soo booqdo inaan la wadaago muxuu ahay bal wixii fikir ah inaan la wadaago wixii muxuu ahay xal u baahan waxaa kaloo insha Allah taala halkeeda ka qayb qaadan doona insha Allah taala wixii muran ah ama isqabqabsi siyaasadeed ah ama isjiid kale ka jira macnaha gobolka Hiiraan gaar ahaan magaalada Beledweyne runtii haday tahay xagga maamulka haday tahay xagga dib u heshiisiinta qaybta yani iyaga aadan runtii insha Allah xagaraan u qaadan doona ilaahay idinkiis shay hadii la isla qabsado nabiga wuxuu ahaan jiray wuxuu dooran jiray kan fudud ma lam yakun ithman haduusan dambi ahayn waxaan rajaynaa markaa waxa la isku haay runtii dadka qaarkood inay tanaasuli doonaan insha Allah taala ay muxuu ahay xalka qaadan doonaan ragana waxa uu fiican qofka sabre muxuu ahay asaga yani tanaasul ayaa uu fiican socdaalka uu ku tagay Beledweyne Sheekh Cismaan Barre gudoomiyaha baarlamaanka Hirshabelle ayaa waxa ay ku soo beegmaysaa iyadoo xubno ka tirsan baarlamaanka dawladda federaalka Soomaaliya iyo golayaasha dawladda ay ku sugan yihiin magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan